السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشركيني أكوتنك ها قيبتي سلابات إكسلكا maanta halka waxaanu ku diyaarin doonaa waxa weeyaan qaybtii labaad ee chapter 1 ka waynu dhamaynay chapter 1 kii ayaynu example kan bixi doonaa aynu ku diyaarinay excelka markaa sida excelka lagu shaqeynayo iyo sida excelka lagu diyaarinayo halkan waxa ka muuqda waxa weeye general journal marka waxa weeyaan example baynu soo qaadanay example kan baynu ka shaqeyn doonaa marka kowda May in Code May received cash from owners as investment. Code May waxayna soo gashay aynu gelinay maalgelin lacag dhan oo ah $1,500 ayaynu maalgelin gelinay $1,500 ayaynu maalgelin gelinay marka waxaanu kaga shaqeyn doonaa general journalkini kaga shaqeyn doonaa marka general journalkini waa halkan inagu diyaarsan general journalkini waa kan kowdii May waxaynu gelinay lacag dhan ayaynu maalgelin gelinay marka waxaad oranaysaa waa kowda cash baynu halka qorinaa cash markii qorno R1 baynu hayn debitkeeni waxa imanaya $1,500 halkan waxay lacagta company-ga geliyay ninka la yiraahdo Faarax oo noqonaya capital ayaa uu noqonaya marka halkan waxa imanaya waxa weeyaan $1,500 baa sidaa u imanaya haddii aanu ku noqono $1,500 ayaa sidaa u imanaya example-keeni haddii aan ku noqono capital-ku wuxuu noqday Faarax Daawud oo capital lacag baynu iska bixinay lacag kira ah baynu iska bixinay oo $1,800 ayaynu iska bixinay lacag kira ah ayaynu isla kowdii bisha iska bixinay $1,800 marka general journal-keeni oo diyaarsan baynu imanaynaa markaynu nimaadno waxaynu halka ku qorinaa isla kowdii May weeyaan halka waxa gelaya renting expenses ayaa gelaya oo noqonaya C1 marka halka waxa imanaya waxa weeyaan $1,800 ayaa imanaya halka waxa imanaya qaybta credit-ka waxa tagaya cash baynu ku bixinay oo noqonaya $1,800 ayaa tagaya qaybta cash-ka credit-ka tagaya haddii aan example-keeni ku soo noqono sidoo kale labadii May waxaanu bixinay bill ah electricity bill baynu bixinay oo noqonaya iyo mushaharkii waxyaabihii la isticmaalay miscellaneous-ka ahaa marka halka oo ah $105 ayaynu bixinay $105 ayaynu bixinay $105 ayaynu ku bixinay iyagana $105 baynu ku bixinay $105 baynu ku bixinay marka general journal-keeni haddii aan ku noqono labadii bisha ayuu noqonayaa labada halka waxaanu gelinay marka labadii bisha waxaanu gelinaynaa halka miscellaneous mushaharkii yaryara oo noqonaya C marka document number-keenu C2 baynu raacaynaa C2 ayaynu halka ku qorinaa oo document number-keena halkan debit-kii baynu gelinaynaa lacag dhan oo $105 halkan waxa imanaya qaybta credit-ka waxa tagaya cash baa tagaya oo noqonaysa $105 ay noqonaysaa $105 ay noqonaysaa haddii aan example-keeni ku noqono 4 May sidoo kale alaab for supply alaab baan iska bixinay
alaab ayaan bixinay oo noqonaysa $450 oo C3 noqonaysa documentigan waxa weeyaan C3 noqonaysa marka haddii aan example-keena ku noqo journal-keena haddana haddii aan gelino iyadana afarta ayaan halkaa qoraynaa 4 May marka halkan bishii baan gelinaa halkaa waxa weeyaan bisha caadiga ah halkana waxa weeyaan journal number ku noqonayo halkaa 7 May bay noqonaysaa laakiin halkan journalka waxay ka noqonaysaa 4 May bay ka noqonaysaa 7 May bay noqonaysaa marka saas oo soo raacaysaa markaad qorayso date-ka marka halkan waxaanu gelinay supplies ayaan gelinay oo noqonaya C3 documentiga wuxuu ka noqonaya C3 waa $450 qaybta credit-ka waxaa tagaya cash baa tagaya noqonaysa $450 saasay u tagayaan $450 example-keena haddii aan ku noqono isla afartii bisha sidoo kale insurance 6 month insurance aan lanaga qaaday noqonaysa $1,200 $1,200 noqonaysa marka general journal-keena imanayna afartii marka qoraynaa oo 9kii bisha noqonaysa xagga waxay ka noqonaysaa 9kii bisha waxaan qoraynaa marka prepaid baa lanaga qaaday prepaid ayaa lanaga qaaday oo noqonaysa insurance noqonaysa insurance bay noqonaysaa oo noqonaysa C4 haddii debit-ki iyo credit-keeni kala gelino debit-keeni waxaa galaya prepaid insurance C4 noqonaysa debit-keeni galaysa oo ah $1,200 xaggan cash baa tegaya $1,200 ayaad qabanaya example-keeni waan kusoo noqonnaa waxaa 7 May lanaga qaaday waa supply on accounts ayaa lanaga qaaday supply on accounts oo $900 ayaa lanaga qaaday marka journal-keeni baynu imanaynaa 7 May qoraynaa oo halka ka noqonaysa 11 May 2020 ka noqonaysa marka journal-keena qaban nimaadna waxaan qoraynaa supply ayaan qoraynaa markaan supply qorno xaggan waxa imanaya M1 oo noqonaya qaybta debit-ka noqonaya $900 xaggan accounting payable bay noqonaysaa accounting payable oo credit tagaya accounting payable supplies oo $900 marka qaabkaasaa loo gelinayaa excelka qaabkaasaa example-ka loo gelinayaa iminka example-ka way naga dhamaystirnay qaabkaasaa loo gelinaya markaad accountiga kaga shaqeynayso excelka markaad excel kaga shaqeynayso accountiga qaabkaasaa looga shaqeynaya journal-keena markaad diyaarinayso marka isagoo chapter 1-kii baynu soo qaadanay marka chapter 1-kii markaynu sharaxaad kasoo qaadnay marka waxaanu kaga shaqeynayaa example-kan ayaanu kaga shaqeynaynaa accounting-ka journal-kan kaga shaqeynaynaa example-keenii baynu soo qaadanay example-keenii baynu kaga shaqeynaa marka sida lagu shaqeynayo waxa weeyaan excelka lagu diyaarinayo journal accounting iminka haddii aynu halkan eegno waxaa ku qoran step 2 waa record transactions and determine siduu markaa ka caawinayso siyaabuhu kaaga caawinayo iminka received lacagta qabato kale cash waxay tegaysaa debit spending waxay tegaya credit capitalku is always had iyo jeer wuxuu qabanaya credit
lacagaha lala baxayaa amba lacagta lala baxayaa waxay qabanaysaa debit waxyaabahaas iibinaysa had iyo jeer credit bay imanayaan expenses wuxuu imanayaa debit supplies wuxuu imanayaa debit marka waxa weeyaan this will help you determine of each account is a debit and credit so debit iyo credit kaaga caawinayso marka hortu haddaba waa maxay farqiga u dhaxeeya debit iyo credit debitowna maxaa tahay creditowna maxaa tahay iminka haddii aynu halkan ku noqono waxa ku qoran waa post reference warqadda post referencekeedii iyo documentii numberkanu raacinay oo R1 C1 C2 C3 C4 saasaa loo qoray halka waxaa ku qoran accounting title oo noqonaya cashkii oo noqonaya capitalkii oo faarax noqonaya current expenses cashkii miscellaneous expenses cash supply cash prepaid insurance cash supply accounting payable supply saasaa loo qoray marka debit iyo credit waynu kala gelinay debit iyo credit waynu kala gelinay xisaabtii waa talka ka muuqata hadii aan soo dhaweyno debit iyo credit waynu kala gelinay marka debit iyo credit la kala gelinay haddaba debitowna maxaa tahay creditowna maxaa tahay qaybta debit iyo credit maxay kala yihiin debit iyo credit waa maxay farqiga u dhaxeeya debit iyo credit waa maxay what is a difference between debit and credit waa maxay farqiga u dhaxeeya debit iyo credit farqiga u dhaxeeya waxa weeye haddii aan isku darno accounting questionkeeni aynu chapter 1kii kusoo sharaxnay accounting question kusoo sharaxnay assetku wuxuu ku leeyahay liability-ga oo loo geeyo ownership-ga liability assetku waa hantida aad haysato haddii tahay cash lacag bay noqon kartaa computers bay noqon kartaa inventory bay noqon kartaa alaab ku xareysan buildings dhismayaal bay noqon kartaa land dhul bay noqon kartaa machineries machine noqon kartaa wax kasta oo hanti ma guurtaa oo haysato weeyaan liability waxa weeyaan waxyaabaha deynta aad soo amaahato ee ganacsigaaga u soo amaahato ee deyna ownership waa waxyaabaha ganacsigaaga geliso aba ownership waxa qofka ganacsiga leh amba qofka business kale waxyaabuhu geliyo weeyaan iska leh marka waxa kamid ah liability account payable ba kamid ah note payable ba kamid ah halka ownership ka kamid yihiin common stock-yada common-ka ah iyo return earning-ka kusoo geliyo noqonaya revenue dakhliga kusoo gelaya iyo expenses-yada ka baxaya labadaba noqonaya marka waa maxay farqiga u dhaxeeya debit iyo credit farqiga u dhaxeeya debit iyo credit muxuu noqonayaa farqiga u dhaxeeya debit iyo credit waxa weeyaan asset oo loo geeyay liability assetku wuxuu ku leeyahay liability-ga ownership-ga loo geeyay marka halkan waxa yaala waa increase waa qaybta ka kordhaya debitku amba debitku waxa weeyaan waa cashkii ku soo gelaysay alaabtii inventory hadday tahay cash hadday tahay computer hadday tahay bill hadday tahay debit buu noqonayaa waa asset kaad haysatay waa hantida haysatay liability wuxuu noqonayaa credit ownership-ga credit baa tagaya tusaale ahaan company baa 1000 lacaga ayaa uu haystay dabeetana 1000 wuxuu noqonayaa qaybta credit oo noqonaya note liability 1000 baa tagaya oo noqonaya qaybtii credit ka ay qabanayaan haddii journalkeena ku noqono faarax wuxuu sameeyey example-kan baynu eegi doonaa haddii aan example-keenan eegno lacag baa soo gashay koodii May lacag baa ninka faarax Daawud soo gashay oo ownership-ga marka investment buu sameeyey $1500 $1500 cash bay noqonaysaa cashki muxuu ahaa cashki wuxuu tagayay debit ku tagay hadda halka ka muuqata inaga number 1 haddaad eegto hadday received hadday lacag ku soo gasho halkan waxa ka muuqda received haddii aan example-kan isla eegno halka waxa yiri received lacag baa soo gashay halkana if you receive lacag kasto cash ku soo gasho waxay tagaysaa debit hadday capital ku soo gasho capitalkun is always had year wuxuu tagayaa credit lambarka saddexaad capital is always credit buu qabanaya marka halkan imika waxaan soo gashay cashkiina soo gashay waxay noqonaysaa marka debit bay noqonaysaa
faarax daawud capital buu noqonayaa wuxuu noqonayaa ownership equity oo credit waxa galaya 1500 1500 baa debit galay 1500 baa credit galay marka waxay ku kala duwan yihiin labadan debit iyo credit waxay ku kala duwan yihiin debit waxa weeyaan wax kasto asada in oo cash halkii credit noqonaya liability ownership equity oo noqonaya wixii anti aad gelisay ganacsigaaga credit buu noqonayaa wixii deyn aad soo amaahatayna wuxuu noqonayaa credit labadiiba waxay noqonayaan credit marka debit iyo credit waxay ku kala duwan yihiin waan sharaxnay marka chapter 1kiina waan ku sharaxnay halkana waan ku sharaxnay marka in example-keenina waa kan aan maanta ka shaqeynay example-kan ka shaqeynay channel 3geeni xisaabteena waa inta marka imika xisaabtan in kooban baan ka shaqeynay waan soo koobnay ayadoo badan baad ka shaqeyn kartaa in ayadoo diyaarinaysa channel 3 in example badan ayaad kaga shaqeyn kartaa iyo company badan iyo meherado badan adiga xisaabinaya amba businessyo badan adiga xisaabinaya example-ka waxaan soo koobnay waxa weeyaan intaas minu soo koobnay waxaan soo koobnay in example-ku uu soo koobo 10kii oo dhan 10kii inuu dhigno oo dhan inuu soo koobo ayaynu ugu talagalnay